بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادا طبعا حقيقو كسابسان دولكينا هويو الصومالية فضلا موقال كان هدو كسو غارو سبسكرايب سار سي ادو داوتا موقالدينا كان خيغا waxaanu ku eegi doonaa badda bariga iyo shakhsiyaadka caanka ah lambar 1 Soomaaliya waxa ku taala xeebta labaad ee Afrika ugu dheer waxaana kaliya ka dheer xeebta Madagascar xeebta Soomaaliya waxay martaa ku dhawaad 30 magaalo oo Soomaaliya kamid ah lambar 2 Soomaaliya waa dalka kaliya ee geela ugu badan laga dhaqdo caalamka waxaana tiradiisa lagu qiyaasaa 15 milyan oo neef geela waa xoolaha ugu muhiimsan oo Soomaalidu dhaqato waxayna ka tiriyaan heeso ay ku amaanaan waxaana kamid ah wiilal habar la yay habtaayo hooyadood tahay iyo maasooyin kale oo badan lambar 3 magaalada Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal waxa ay jirtay xilligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka hor waxa ayna ahayd magaalo ganacsigu ku xoogan yahay waxa ku yaala masjidka qiblateenka waana masjidka ugu faca weyn geeska Afrika waxa uu leeyahay laba qiblo oo kala ah Qudus iyo Maka lambar 4 Muqdisho waa magaalo faca weyn waxa ayna dhisnay 10 qarni ka badan waxaana soo maray ilbaxnimooyin kala duwan ilbaxnimooyinkaas waxa hormuud u ahaa ganacsatadii Muqdisho ku dhaqneed iyo ganacsatadii Hindida iyo Carabta isugu jiray waxaana soo maray boqortooyooyin kala duwan boqortooyadii ugu dambeysay waa boqortooyadii Ujuuraan taasoo ka talinaysay dhul badan oo koonfurta Soomaaliya kamid ah lambar 5 Soomaalida hore waxay ahaayeen kuwo ku wanaagsan ganacsiga waxa ayna xiriiro ganacsi la lahaayeen Carabta iyo gacanka Hindiya taas oo muujinaysa heerka ganacsiga Soomaalidu ka gaareen xilliyadii hore Ibn Battuta oo ahaa dhulmareen oo Muqdisho booqday 1331 ayaa yiri sidaan waxa aan ka soo galay badda magaalada Muqdisho oo ah magaalo weyn dadkeeduna ay leeyihiin geel fara badan oo ay maalin walba boqolaal qashaan waxa kale oo ay leeyihiin ari fara badan dadkeedu waa ganacsato waaweyn lambar 6 Soomaaliya waxa ay xornimada qaadatay 1960kii waxaana madaxweynihii ugu horeeyay loo doortay Aadan Cabdulle Cusmaan mise ogtahay Aadan Cabdulle inuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee Afrikaan oo xilka u wareejiyay si dimuqraadiyad ku dheehan tahay kadib markii looga guuleystay doorashadii dhacday lambar 7 geesigii Soomaaliyeed ee difaacay qabriga rasuulka waxa uu ahaa Imaam Axmed Gurey boqortooyadii Isbeen ayaa isku dayday inay dhanka jasiiradda Carabta ka soo galaan laakiin Axmed Gurey oo hogaaminayay boqortooyadii Adal ayaa dagaal kula galay boqortooyadii Isbeen Eritrea iyo qaybo kamid ah dhulka Itoobiya sanadkii 1542 lambar 8 gumeystihii reer Yurub waxa ay Soomaaliya u qaybsheen 5 qaybood oo kala ah Italian Soomaaliya oo ah koonfurta Soomaaliya British Soomaaliya oo ah Somaliland Faransa Soomaaliya oo ah Djibouti kilinka shanaad oo ah Ogaadeniya iyo NFD oo ah dhulka Soomaalida Kenya lambar 9 Itoobiya 1964 waxay dagaal ku soo qaadeen Soomaaliya iyadoo hamigeedu ahaa inay qabsato inta ka xorowday dhulka Soomaaliyeed laakiin hankaasi waa ay ku hingoobeen 1977 ayuu dhacay dagaalka Soomaaliya ay ku qabsatay dhulka laga haystay kana erisay xabashidii haysatay laakiin nasiib xumo dhulkaasi dib ayaan uga soo baxnay markii ay quwada shisheeye garab siiyeen Itoobiya lambarka ugu dambeeya waa lambarka 10aad 1972 waxa la qoray afka Soomaaliga iyadoo xilligaasi la bilaabay ololihii loogu magac daray bar ama baro xilligaasi waxa wax lagu qori jiray Carabi iyo Ingiriis